Si Chen ayaa si fudud u burburiyey taleefanka isagoo dambiyo dhalaalaya. Cabsi weyn ayaa ku dhacday wiilkii kharibanaa isagoo dib u gurmanaya oo qaylinaya inuu wejigiisa ka fogaado isagoo si bareer ah u weydiinaya cidda uu la macaamilayo. Hal ilbiriqsi Si Chen wuxuu ku tuuray Jinduan daaqadda musqusha. Qaylo xaaqan ayaa soo daday iyadoo wiilkii kharibanaa uu ku soo dhacay sagxadda barkadda hoosteeda. Isagoo dhiigga iyo nabarrada ku jira sagxadda adag, Jinduan wuxuu si argagax leh u qayliyey caawimo isagoo ka baryaya qof uun inuu badbaadiyo. Wuxuu eegay barkadda wuxuuna arkay muuqaal qabo marti kasta oo xafladiisa ka mid ah waxay u jiifaan wejiga hoos ama ku suursan iyagoo miir laan ah. Si Chen ayaa ku soo baxay sagxadda isagoo ku dahaaran jawi madow oo hanjab leh. Isagoo doonaya inuu baxsado, Jinduan wuxuu gurguurtaa dib u gacanta iyo jilibka isagoo habaaranaya. Isagoo kor u eegaya indhaha dhalaalaya ee dabagalaha wuxuu ku qayliyey weydiinaya cidda uu yahay, waxa uu sameeyey si uu u istaahilo iyo sababta loo ugaarsanayo. Wuxuu isku dayaa inuu ciyaaro kaarkii ugu dambeeyey isagoo si qaylo leh ugu faanaya aabbihii oo ah maamulaha isbitaalka koowaad. Wuxuu ku qayliyey in haddii Si Chen xataa hal far saaro, aabbihiis uu isticmaali doono dhammaan awooddiisa si uu u aaso. Isagoo ka daalay hanjabaadaha madhan, Si Chen wuxuu amray Jinduan inuu afka xidho, isla markiiba wuxuu qabtay maskaxda wiilka isagoo isticmaalaya sixirka hurdada. Saamaynta sixirka, Jinduan wuxuu ku dhacay jilbaha. Si Chen wuxuu hoos u eegay bubbedkiisa wuxuuna si qabow u amray inuu soo qaado qayb fiiqan oo ka mid ah dhalagii jabay. Gacanta Jinduan waxay si toos ah hoos u tagtay iyadoo qabsatay qaybta fiiqan. Waxay noqotaa mid cad in sharka saafiga ah uusan ku dhuuman keliyaha Dungyons, laakiin taa beddelkeeda wuxuu ku socdaa dadka caadiga ah maalin kasta. Jinduan iyo saaxiibadiis waxay sameeyeen dembiyo aan la sheegi karin oo ka dhan ah arday taageer laan ah. Carruurtan qariban waxay isticmaaleen maalkooda aan dhammaadka lahayn si ay u qariyaan dembiyadooda iyagoo ka dhigay gabadhii miskiinka ahayd inay isdisho iyadoo quus ah. Markii masiibadu dhacday, waxay si fudud u isticmaaleen awoodda qoysaskooda si loo hubiyo in eedda ayan ku soo noqon. Jinduan xataa wuxuu been abuuray warbixintii baaritaanka jidhka si loogu eedeeyo shil naxdin leh isagoo ku faanaya in adduunku uu yahay kan lacagta leh. Kani waa tuugtii saxda ahayd ee lacag badan siisay tuugadii isagoo amray inay kharibaan nolol Siyun si kasta oo ay suurtagal tahay. Laakiin markan Jinduan wuxuu sameeyey qaladka ugu halista ah isagoo bartilmaameedsaday walaalkii qofka khaldan. Isagoo qabanaya qaybta fiiqan ee dhalaga iyadoo la kontaroolayo sixirka hurdada, wuxuu si tartiib ah ugu soo qaadayaa dhalaga cunaha. Si Chen wuxuu u dhaaranayaa inuu baadi goobayo oo baabi'iyo khatar kasta oo ku soo kordha walaashiis, xataa haddii ay tahay inuu u dhaqmo sidii garsoore, heer beegti iyo fuliye. Xataa haddii ay tahay inuu dhex maro moolalka ugu mugdiga ah adduunka, marnaba ma guudayo. Si Chen ayaa markaas amray bubbedkiisa inuu dhammeeyo. Isla markiiba kadib dagaalkoodii adkaa ee ka dhacay gudaha Dungyeon ka duur joogta ah, Si Chen oo guulaysta ayaa istaaga saaxiibkiisii dhaawacmaa, Gong Ting. Wuxuu si degan ugu sheegay in maamulaha Dungyeon ka uu dhintay, bannaankuna uu cad yahay, isagoo ku boorinaya inuu sugo ilaa ay kooxda samata bixinta timi. Gong Ting wuxuu ballan qaaday Si Chen isagoo u sheegay in markay soo baxaan uu sheegi doono runta ah in Si Chen badbaadiyey dhammaan noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, wakhti uma jiro in loo dabaaldego. Dareenka Si Chen ayaa si kedis ah u kiciyey isagoo uga sii maraya xiriirka maskaxda uu la leeyahay xayawaankiisa Leo. Wuxuu arkay muuqaal argagax leh, tuugii baa ee Blackie wuxuu ku soo dhowaanayay walaashiis Siyun. Markuu gartay inay khatar ku jirto, Si Chen si degdeg ah ayuu u dhaqaajiyey xirfadiisa Stellar Warp isagoo isticmaalay tamartiisa maskaxda si uu u safro oo uu isla markiiba ka dhex lumo godka. Gong Ting ayaa ka tegay isagoo eegaya meeshii bannaanayd isagoo naxsan. Wuxuu garanayaa in Si Chen aanay ahayn keliya isticmaale 2 fasala, laakiin dhab ahaantii wuxuu isticmaalayaa dhowr fasallo isku mar, taasoo ka dhigaysa inuu la yaabo inta sir ee uu qarinayo. Wax yar kadib, dhawaaq culus ayaa ka soo dhacay waddooyinka hoostiisa, iyadoo maamule Gong uu ku soo qarxay godka isagoo wata dhaqaatiir degdeg ah, isagoo si degdeg ah u amraya inay badbaadiyaan ardayda. Kooxda samata bixinta waxay si degdeg ah ugu ordeen godka si ay u gaadhaan Gong Ting. Intay isticmaalayaan sixir bogsiin si ay u joojiyaan dhiigga badan, Gong Xuan ayaa soo dhowaaday si uu u eego xaaladiisa. Isagoo eegaya ardaygiisa dhaawacan, Gong Xuan wuxuu ku xusay dhididka wejigiisa in maamulaha Dungyeon ka uu lahaa awood barank oo cabsi leh, isagoo u sheegaya Gong Ting in ka badbaadida dagaalka caynkaas uu yahay mucjiso dhammaystiran. Dhanka kale, dhaqaatiirta kale waxay daryeelaan badbaadiyayaasha, iyagoo xaqiijinaya in satowada uu degan yahay oo la sifeeyey. Inkastoo jir ahaan ay badbaado tahay, Jasmine oo naxsan waxay ku hadlaysaa si maangal ah waxa ay soo martay oo ku saabsan riyooyinka maskaxeed ee ay badbaaday. Gong Xuan ayaa markaas ogaaday in Si Chen uusan joogin. Markay kooxihii baadhitaanku helin wax calaamad ah, maamule waxa uu u malaynayaa in wiilka uu cabsi qabay oo cararay, isagoo amraya raggiisa inay baadheen deegaanka. Isagoo xanaaqsan, Gong Xuan wuxuu ku eedeeyey masiibada oo dhan karti darrada hay'adda kormeerka. Wuxuu si xanaaq leh u sheegay in dhaawacyada Gong Ting ay yihiin qaladkooda, wuxuuna ku dhaaranayaa inuu eri doono kormeere kasta markay soo noqdaan.
dhanka kale Gonglin oo ah aabbaha caqliga badan ee Gong Ting wuxuu eegay goobta dhiigga leh wuuna qoslay. isla markiiba wuxuu bilaabay inuu sheeko been abuur ah ka dhiso isagoo ku eedeeyay in dhacdadu tahay dilaac xayawaan ah oo ay imtixaanayaashu si fudud u qaadi kari waayeen. Gonglin wuxuu qorshaynayaa inuu adduunka u sheego in wiilkiisa geesinimada leh uu soo baxay si uu qof kasta u badbaadiyo markii rajo dhammaatay. isagoo ku eedaysan ammaanta la xaday, Gong Ting wuxuu isku dayaa inuu hadlo oo uu qirtay in Si Jen ahaa kii dhab ahaan dilay maamulaha. si kastaba ha ahaatee, aabbihiis ayaa isla markiiba ka hadalka gooyey isagoo si adag ugu riixaya dhabarka nabarkiisa si uu xanuun u keeno. wuxuu ku hanjabay si hoose isagoo u sheegaya Gong Ting inuu qaadan doono ammaanta halka maraakibtu aamusan yihiin sababtoo ah cabsi. wuxuu si qabow u amray wiilkiisa inuu nadaafiyo isagoo sheegay in berito xafladda qalinjabinta ay tahay meesha Gong Ting uu ku soo ifbixi doono sidii geesigii ugu weynaa iskuulka. xalintii dambe oo ku saabsan gurigooda kiraysta ah, jawigu aad buu u faraxsan yahay. markay cunto kulul cunayeen, Jutong waxay si farxad leh ugu hambaliyeysay Siyun kaalinteeda iyo aqbalitaankeedii akadeemiyada dhexe ee farshaxanka. Jutong way ku faraxsan tahay saaxiibkeed iyagoo ku dhawaaqaya in Siyun ay ugu dambayntii raacday riyadeeda isagoo u socota inay noqoto farshaxaniste caalami ah. dhanka kale, Si Jen waxay si degan u cabbayaa cabitaankiisa isagoo wejigiisu aanay waxba ka muuqan. markii ay aragtay inaanu faraxsanayn, Siyun oo cabso leh ayaa weydiisay sababta uu u ekaa sidii qof caajisay, sidii hadduu hore u og yahay inay kaalinta dhaafi doonto. Si Jen si dhaqso leh ayuu u qoslay isagoo u ballan qaadaya inuu runtii u faraxsan yahay. inkastoo xaqiiqda dhabta ah wuxuu xasuustay in noloshii hore ay warqadda aqbalitaanka heshay isla maalintan. Jutong waxay qirtaa inay aad u masayr tahay sababtoo ah waxbarashada magaalada Sanhaf waa fursad naadir ah oo dadka caadiga ah ay ku riyoon karaan oo keliya. si kastaba ha ahaatee, Siyun waxay ka walwalsan tahay sida ay uga fog tahay Sanhaf iyo kharashka nolosha ee sare. markay aragtay inay ka labalabaynayso, Si Jen waa soo dhex galay isagoo u sheegaya inay si buuxda u ilaawdo lacagta ama wax walba oo kale. isagoo dhigaya dhaladiisa miiska, wuxuu si degan u sheegay in markuu qalinjabiyo uu ka shaqayn doono Sanhaf isla iyada. warkaani aad buu uga yaabiyey labadii gabdhood. waxay soo boodeen iyagoo weydiinaya sida loogu qoray guild Sanhaf tan iyo markay kooxaha elite ka ah ay shaqaaleeyaan kuwa ugu fiican. Siyun way ku faraxsan tahay warkan sababtoo ah waxay u guuri karaan Sanhaf wada jir, halka Jutong ay ka cabanayso masayrkeeda iyagoo ku majaajiloodaya inay si adag u baran doonto si ay markii dambe ugu biirto. isagoo daawanaya walaashiis oo dabaaldegaysa, Si Jen wuxuu si diiran u qoslay wuxuuna sameeyey ballan qarsoodi ah oo ah in noloshdan ayan weligeed u hurawan doonin riyadeeda qof kale. xalintii dambe, Si Jen wuxuu qaatay qubays si uu u maydho daalka maalintii. wuxuu ka fikirayaa guulihiisa, tuugadii walaashiis daba socday way dhammaadeen, imtixaankii qalinjabinta ee walaalka ahna waa dhammaaday. waxa ugu fiican, heshiiskii qarsoodiga ahaa ee uu la galay Gong Ting wuxuu si fiican u shaqaynayaa. isagoo u daayay saaxiibkiis inuu qaato ammaanta, Si Jen waxa uu heli doonaa abaalmarinta $1 milyan beri, taasoo ah waxa uu u baahan yahay si uu u bixiyo deymaha qoyskiisa. isagoo ku nasanaya qolkiisa, wuxuu og yahay inaanu weli raaxaysan karin. wuxuu ka fikirayaa boqorka Jinkowrat isagoo garanaya in haddii maamuluhu la xidhay markuu soo galay adduunka baniaadamka, jadwalka wakhtigu si buuxda ay isu beddeshay. jadwalkiisii 3 sano ee hore ka hor masiibada hadda waa mid aan la hubin. haddii uu ogaan lahaa meesha xidhitaanku ku yaal, wuu jebin lahaa isagii si uu khatarta u soo afjaro goor hore, taasoo ka dhigaysa helitaanka Urat mudnaantiisa koowaad si uu si dhaqso leh ugu tago Sanhaf. laakiin ka hor inta uusan la dagaalamin boqorka Jinka, Si Jen wuxuu og yahay inuu u baahan yahay saaxiib xoog leh oo uu kalsooni ku qabo. nasiib wanaag, xafladda qalinjabinta beri waa meeshii ugu habboonayd si uu u qoralo qofka uu u baahan yahay. dhanka kale, qol shaah ah oo degan, guddoomiye ku-xigeenka ardayda Lingyu waxay la kulantay Carl Eindish oo ah guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga guildka adduunka. waxay soo sheegtay in Awakenerban oo loo yaqaan cunaha lagu arkay degmada Everfield, taasoo si dhaqso leh u soo jiitay danaha Carl. Lingyu waxay sharaxday inay u soo carartay goobta, laakiin waxay heshay kamaradaha amniga oo la tirtiray. calaamadaha keliya ee laga tegay waxay ahaayeen dhibco dhiig oo cusub iyo xariijimo dhulka ah oo u dhigma habdhaqankii caadiga ahaa ee dilka iyo baabiinta dhibanayaasha. waxay uga digtay Carl in diluhu uu si gaar ah u bartilmaameedsado Awakener-yada elite ka ah ee leh awoodo naadir ah oo xoog leh, heerka dhibanayaashuna uu kor u kacayay weerar kasta. tani waxay ka dhigan tahay in diluhu uu xaday xooggooda oo uu si dhaqso leh u korayo isagoo cunaya bartilmaameedyo sii kordhaya oo xoog leh. Lingyu waxay uga digtay Carl in cunuhu marnaba joojin markuu bartilmaameedsado deegaan, waxayna dareemaysaa in weerar kale uu imaanayo. Carl wuu qoslay isagoo u arkay wakhtiga soo bixitaanka xayawaanka inuu yahay mid xiiso leh. isagoo faayil cusub ugu siibaya miiska, Lingyu waxay ku dartay in weerarkii ugu dambeeyey ee cunuhu uu ka dhacay waddo cidlo ah oo ku taal xaafad dakhligeedu hooseeyo. waxaa la yaab leh, goobta saxda ah ee dilka waxay ka yar tahay 100 mitir guriga Si Jen.
inkastoo ayan hayn sawiro cunnaha, Lingi waxay xustay in awoodda Sichen ay si aan macquul ahayn u kortay. Laakiin ka hor intaysan sii wadin waxay ka fikirtay waxyaabo badan oo weli qarsoon. Ka hor intaysan dhammaystirin hadalkeeda, Carl wuu qoslay, isagoo soo jeedinaya in cunnaha xooga cuna uu dhab ahaantii yahay Sichen laftiisa. Akadeemiyada kaaliyaha maamula Yuanlong ayaa weydiinaya sababta uu uga boodayo xafladda qalinjabinta ardayda uu koriyey. Yuanlong wuu qoslay, wuxuuna sharaxay inuu doonayay oo keliya inuu siiyo ardaydiisa meel nabdoon oo ay ku koraan markay daciif ahaayeen, laakiin hadda way weynaadeen. Markaas wuxuu sii daayay shimbirahiisa daaqadda, isagoo sheegay inay tahay wakhtigii ay ku bixi lahaayeen oo ay heli lahaayeen jidadkooda nolosha. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu arkay hal shimbir oo adkaysata oo ku hadhaysa qafiska, taasoo ka dhigtay inuu la yaabo meesha ay dhab ahaan doonayso inay tagto. Dhanka hoolka weyn ee qalinjabinta, Mong iyo Shang Zuo waxay si yaab leh u eegayaan goobta weyn. Markay garteen in akadeemiyadu ay diyaarisay soo dhoweyn weyn oo loogu talagalay madaxda guildiyada waaweyn, Mong waxay la yaaban tahay sida Sichen iyo Gongting ugu soo baxeen tijaabadii qarsoodiga ahayd. Intay mataanuhu ka wada hadlayaan xeerarka adag ee akadeemiyada, Mong si kibrin leh ayuu ugu faanayaa in Shang uu si buuxda u jebiyey tartanka. Laakiin si kedis ah, walaalkii Gongting, Gong Tong, ayaa u sheegay Mong inuu aamuso oo uu joojiyo dhiirigelinta Sichen. Wuu qoslay, wuxuuna sheegay in Sichen uusan hayn wax fursad ah oo uu ku guulaysto, isagoo ku andacoonaya in walaalkiis Gongting uu yahay kan damaanad qaba inuu noqdo guulayste. Isagoo ka xanaajiyey kibrintiisa, kooxdu waxay bilaabeen inay isdaafiyaan calaamado hoose iyo aflagaado yar. Gadaasha xafladda weyn, Gong Lin wuu eegay, wuxuuna xusay in guild kasta oo waaweyn oo dalka ah uu soo diray wakiil. Tan iyo markii golaha dhammaan ee guildka Imperial ay ka qaybgalayaan, dadka dibadda ku sugan waxay horeba ugu qaylinayaan farxad si ay u arkaan shakhsiyaadka halyeyga ah. wax yar kadib, asaasihii guildka Imperial, Guan Yuan, iyo asaasihii Titan Ming waxay soo galeen si ay u soo dhoweeyaan martida elite ka ah, taasoo Gong Lin uu si qarsoodi ah u qorsheeyey doorashada golaha soo socota. Wuxuu qorsheynayaa inuu isticmaalo xafladdan si uu ku guulaysto xubnaha golaha ee aan go'aan qaadan si uu u jebiyo codkii isku xirnaa. Samayn, Gong Lin wuxuu go'aansaday inuu ugu dambayntii qabsado kursiga madaxa ee aadka loo doonayo. Wuxuu u xaqiijiyey wiilkiis Gongting in Carl, oo ah gudoomiye ku-xigeenka isbahaysiga guildka adduunka, uu gacantiisa ku siin doono koobka guulayste, taasoo calaamad u ah bilowga kor u kaca heerka ugu sarreeya. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu si adag ugu digay Gongting inuusan khaldin, isagoo amraya inuu baxo, sheeko ka hadlo, oo muujiyo adduunka waxa uu ka kooban yahay. Isagoo dareemaya cadaadis weyn oo aabbihiis ah, Gongting wuu aamusay, isagoo si adag ugu qabtanaya cidhiidhi gacantiisa oo uu dharabkiisu laalaabmayo. Isla markiiba martigeliyaha ayaa soo baxay masraxa weyn si uu u bilaabo xafladdii qalinjabinta ee jaamacadda Awakenerka qaranka, taasoo ah tan 257aad. Markay ku dhawaaqday in qiimaynta ugu dambaysay ay rasmi ahaan dhammaatay, Mong iyo mataanaha dadka ku jira si kedis ah ayuu farxad uga dhifay. Hadda oo dhammaan xubnaha golaha iyo maamulayaasha iskuulku ay fadhiyaan, xafladdii taariikhiga ahayd waxay si rasmi ah u bilaabatay. Hoolka oo dhan waxaa ka baxay sacab weyn. Laakiin inta Gongting uu fadhiyo si aamusnaan ah oo xiiso leh, Sichen wuxuu si degan u daawanayaa bandhiga. Xigta ku dhawaaqayaasha ayaa soo baxay masraxa si uu si rasmi ah u soo bandhigo natiijooyinka qiimaynta culus ee sanadkan. Waxay si yaab leh u tilmaantay koobka dahabiga ah ee dhalaalaya ee sugaya masraxa loogu talagalay guulaystaha ugu dambeeya. Kadib waxay soo bandhigtay martida gaarka ah, iyadoo ku martiqaadaysa Carl Eindish, gudoomiye ku-xigeenka isbahaysiga guildka adduunka, inuu soo baxo. Hoos ka hooseeya iftiinka iyo sacabka weyn, Carl wuu soo baxay, isagoo diyaar u ah inuu si shakhsi ah ugu dhawaaqo guulaystaha abaalmarinta weyn. Wuxuu ku bilaabay isagoo u mahadcelinaya guildka Imperial martiqaadka, isagoo yidhi, waa sharaf inaan markhaati u ahay jiilka xiga ee kartida sare. Kadib si dhaqso leh ayuu u soo jiitay dareenka qof kasta, isagoo tilmaamay in wax aan la filayn ay dhaceen intii lagu jiray imtixaankii ugu dambeeyey, taasoo Mong iyo mataanaha si lama filaan ah uga yaabisay. Wuxuu ku dhawaaqay wax weyn, isagoo caddeeyey in Dungyeon-ka heerkad ee hoose ee loo qoondeeyey imtixaanku dhab ahaantii uu ahaa Dungyeon heer sare ah oo khatar ah oo la qariyey. Warkan la yaabka leh ayaa dadweynaha ku dhex riday argagax, iyagoo si hoose u sheekaysanaya in xitaa kooxo xirfad leh ay la dhibaateeyaan khataraha heer, waxayna la yaabaan sida ardaydu u badbaadeen. Carl wuxuu sii waday isagoo sharaxaya in markii rajo oo dhan luntay, hal arday oo geesinimo leh uu isticmaalay karti iyo farsamo quman si uu u sameeyo wax aan macquul ahayn. Wuxuu caddeeyey in dagaalkan keligiis ah uu si keligiis ah u dilay maamulihii Dungyeon Cup heer, isagoo kooxdiisa oo dhan ku soo celiyey iyagoo nool. Inta Sichen oo degan iyo Gongting ay ka dhegaysanayaan dadweynaha, Carl wuxuu diyaar u yahay inuu magacaabo ardayga ugu xoogga badan jiilkooda. Wuu soo taagay gacantiisa, wuxuuna si rasmi ah uga dhawaaqay Gongting inuu yahay guulaystaha aan la tartami karin sanadkan. Roob ka kooban waraaqo yar yar ayaa soo daay, iyadoo Gongting oo dhab ah uu soo kacay si uu u aqbalo sacabka weyn ee dadweynaha.
asxaabta halkan ayuu muuqaalkeena maanta ku dhammaaday waxaana aan rabay in aan idin sheego maalimahan dambe khaladadaadka codka AI-ga wuu soo badanaya marka codkayga ayaan kusoo khulasaynaya fiidiyoyada laakiin waa haddii aan 3000 gaadhno oo subscribe wa ino iyo xalqada 2 hal aad